mid ka mid tahay dadyoga u baahan inay dhaqdaan ilkooga ama ay samaystaan waxa loo yaqaano scaling. Muuqaalkan waxaan kugu sharxi doonaa faa'iidooyinka uu noo leeyahay scalingku ila joogo ila daawo muuqaalkan. Balse inta aan guda galin muuqaalkan waxaan kaa codsanayaa inaad la wadaagtid asxaabtaada si ay dad badan u gaadhaan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Magacaygu waa Dr. Fawzi. Maanta waxaan rabaa inaan kugu sharaxo muuqaal kooban oo ku saabsan dhaqidda ama waxa loo yaqaano scaling. balse inta aan muuqaalkan sida hordhiciisa kusoo aragteen muuqaalkan waxa weeyaan dhaqidda ama in la meedho ilkaha. Haddaba waa maxay scaling ama dhaqitaanka ilko? Scaling waa hab looga nadiifiyo ciridka iyo ilka dhexdooda waxyaalaha cuntada ama haraaga ah sida waxyaalaha jeermiska, dhagaxa, huurada ama waxa loo yaqaano calculusta si looga dhaqo ama looga nadiifiyo. Haddaba sidee ayaa lagu ogaan karaa qofka u baahan scaling ama dhaqidda ilkaha? Waxaa lagu ogaan karaa ciridka oo dhiiga. Sidoo kale waxaa lagu ogaan karaa qofka halitosis ama af ur ama af shiir qofka yeesha. Sidoo kale waxaa lagu ogaan karaa qofka u baahan dhaqid ama scaling ciridkii oo durqa ama qotobax ku yimaado. Sidoo kale waxaa lagu ogaan karaa inaad u baahan tahay scaling ama ilka dhaqid afkaaga oo yeesha bas ama waxa loo yaqaano infection. Maxay yihiin waxyaalaha ka qayb qaadanaya in afkeenu uu noqdo mid nadiif ah? Waxaa ka mid ah cunooyinkan soo socda sida lowska. Qof mar walba lowska isticmaalo afkiisu wuxuu sameysmayaa wuxuu isku nadiifinayaa si automatically ah. Sidoo kale waxaa ka mid ah cunooyinka tufaaxa ama apple-ka. Waxaa kaloo ka mid ah cabidda biyaha badan. Biyaha faraha badan loo cabtid waxay ka qayb qaadanaysaa inuu afkaagii nadiif noqdo. Sidoo kale waxaa ka mid ah inuu afkaaga noqdo mid nadiif ah oo carfayo inaad mar walba isticmaashid dawooyinkan sida Parodontax mouthwash. Haddaba Soomaali ahaan maxaan ka aaminsanahay dhaqidda afka? Waxaan ka aaminsanahay saliidyo. Dadku waxa ay yiraahdaan ama fikirka qaldan ay ka aaminsan yihiin waxaa ka mid ah inuu qofku yiraahdo ilkihii ayaa iga khafiifaya ama iga daciifaya. Sidoo kale qofku waxa uu oranayaa ama uu ka aaminsan yahay inuu ciridkiisu uu durqayo ama ciridkii uu qotobax ku imanayo. Laakiin waxaas oo dhan waa qalad. Haddaba maxaa looga baahan yahay qofka rabo inuu afkiisu noqdo af caadi ah oo normal ah oo udgoon? Waa inuu qofku 6 biloodba mar uu aado ama booqdo dental clinic ama xarumaha afka iyo ilkaha. Sidoo kale qofku waa inuu gaadho ama uu booqdo sanadkiiba 2 jeer ama 6 biloodba mar waa inuu afkiisa ka warhayo. Haddaba muuqaalka xigeentan aan ku kulmi doono waa aniga Dr. Fawzi oo idin leh salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Aad baad mahadsantihiin.